odayaasha dhaqanka degmada Buur-Hakaba oo si kulul uga hadlay arrimaha degmada Buur-Hakaba isla markaasina sheegay in maamulka Koonfur Galbeed go'aan ay ka qaateen kuna biiraan maamulka Hirshabelle waa sida odayaashu ay hadal ku dhigeen waxaana ay eedeyn u jeediyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxda dowladda Soomaaliya iyagoo u sheegay in degmada Buur-Hakaba la iska indhatirayo horumarkeeda dhanka ciidanka oo aan xuquuq lahayn iyo dowladda oo aan ka warhayn degmada waa kan odayaasha dhaqanka oo ka hadlay waxay yiraahdeen madaxweynaha sheegane Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Farmaajo Saacadul ka bilaabo degmada Buur-Hakaba 470 tuulo hooseedaas degmadan kuwiin Saacadul beledweyne bana Hirshabelle Saacadul ka bilaabo degmada Buur-Hakaba meela ka biirana meela xiriir la suubsadaan gobolka mayni xisaabsadooy madaxweynuhu sugaani shalay xambal yaani wasiirada jahni dari antu ko antu mishan bal ku sugaani Buur-Hakaba maseeda caday maseeda uu Saacadul ka bala gobolka degma gobolka mid yihiin saasa aan ku goni Hirshabelle beledweyne ka biiran ma insan wasiire xildhibaane madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo dawladda ma ay sheegaan Saacadul ka bilaabo antii oo Koonfur Galbeed aan ka tirsanayna oo uu ka banay Hirshabelle ka xisaabna saasa cadayal Buur-Hakaba way anu malaag Maxamed Ibrahim way malaagisa ka saatay way nibada qabna fiyaawna isan fiyaantiin dhini boodortaas ka salaaman wasiirinta xildhibaanada madaxweyneyaalka tan kala lamaad Buur-Hakaba Farmaajo hormis aragna mugal ima boodortaas laakiin lan kala raw lafta gareen ballanki ni lahayni ka batiya balanga no qadi boolis kan Buur-Hakaba may muko nya sagal bolo am ko boolis kan Buur-Hakaba interview ko baydo sabab la ko solo way sabab do so daraw may wala me dawlad addiin atum technikiyan diyaariyan saldig dibide la ko jingina ko kala dogal way ni sheen way iidan kaas maana anti on jirtaan Buur-Hakaba diidintu hadda jirtaan Buur-Hakaba ogaado fadi boolis message dami ma bari fad bur al shaab ko boto shaab shahar ko boto maamu shahar ko boto askarti har ko boto yak tar gali ilahi yone di tak modal ma dulu wala su bayt madde on hano damadi ko angana damadi iridum berey ogati hono ni koy way dulu dah ni koy way ko farka ni koy way on bana hirshi lik dar sangni sasani ogala tan Buur-Hakaba inti hoos ko ati kala hadiyo idan ka bahadis oday ka bahadis mishernaant krafat gaajid antone haadu ko on ballanke wala nga bahi on ballanke no qaadi dulu mi faani dulu no faani ko fargal me tayrani laakin may ogane inti Buur-Hakaba bolis ji hatu bay daw shoog sagal belo shoog diaran hasaran no uruway babur kolonjel hasaran no uruway jitko may no ko demete askar bolis yone askar kala me do tay siegi ko ko no demete bogle la wat babur no ko o mana jel du jelle wala ni su merga la maada ta sini ko merga o dulu saab sini ahay degmada Buur-Hakaba Soomaali degmadi ku weyn way 327 tuulo degmada baadiye dharway istaraatiiji way dan degmada Soomaali meel istaraatiiji way degmada Buur-Hakaba aalanka yalla ko wi degmada Buur-Hakaba Soomaali degmada ku weyn ma jirta Koonfur Galbeed madaxda Koonfur Galbeed madaxweynaha Laftagareen yoonay ma dawladii hore Shariif ciidamada degmada Buur-Hakaba oo yaanada ko biiska gaarka Koonfur Galbeed tilum qori guriyala la siimay damishar may siin baabur may siin minshar laan ya dak shaqeeyo may filaanay madaxda duqoyti oo yaanada koreysana ra'iisul wasaare Hassan Khair dawladda federaalka Farmaajo madaxweynaha Farmaajo dawladda federaalka degmada Buur-Hakaba degmada ku weyn waan unu sugaani waan maneen qoyn degmada Buur-Hakaba oo ah degmo qadiimi ayaa inta badan maamulada soo mara gobolka
aan xoogga la saarin si kor loogu qaado isku socodka adeegyada dowladda iyo dadka deegaanka. Odayaasha ayaa sidoo kale waxay hadalkoodii ku sheegeen in inta dowladda la wareegtay Buur-Xakaba shacabkeeda aan la dareensiinin dowladnimada waxa ay tahay, taasi oo sababtay in shacabka iyo dowladdu ay isfahmi waayaan. Xuseen Cali Geesay, Arladii Media, Buur-Xakaba.